wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisaciid Muuse Cali oo madasha diblomaasiyadda Antalya ee dalka Turkiga uga qayb galay dood ku saabsan xuduudeedka badda ayaa mar kale ka hadlay kiiska badda ee Soomaaliya iyo Kenya. Cabdisaciid ayaa sheegay in ay soo gabagabayntii kiiska badda Soomaaliya iyo Kenya ay tusaale u noqon doonto muranada mustaqbalka ee xuduudaha badda ee ka dhexeeya dalalka. Soo gabagabaynta kiiska xadaynta badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya wuxuu tilaabo u noqon doonaa muranada kiisaska imaan doona mustaqbalka ee xadaynta badda. waxay noqon doontaa arrin xiiso leh sida maxkamadda ICJ ay u sii wado horumarinta sharcigeeda kuna dabaqdo habka ay xadaynto badda, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya. waxaan aaminsanahay in ICJ ay sii wado doonto fasiraad cad iyo ku dhaqanka sharciga caalamiga ah. si sharciga caalamiga ahi u guuleysto waa in xukuumadda ICJ loo hoggaansamaa, ayuu yiri xukunnada. dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa la kulmay dhigiisa ee dalka Turkiga oo ay ka wada hadleen arrimo badan oo ku saabsan xiriirada labada dal, wuxuuna uga mahad celiyay taageerada aan hagartan hayn ee Turkiga ay siiso Soomaaliya. Cabdisaciid ayaa sidoo kale uga mahad celiyay wasiirka arrimaha dibadda dalka Turkiga doorka uu ka qaatay isku keenida wasiirada arrimaha dibadda Ruushka iyo Ukraine si xal nabadeed loogu helo dagaalka ka socda Ukraine.